wixii ka dambeeyey dagaaladii ka qarxay Soomaaliya waxaa dalka ka qaxay in badan oo Soomaali ah oo qaarkood ay nolol ka duwantii ay ku haysteen dalka ay ka doonteen wadamo kale. qaar badan oo dadkaas ka mid ah ayaa naftooda ku waayay badaha caalamiga ah ama saxaraha ku yaal qaaradda Afrika intii ay ku sii socdeen wadamo ay islahaayeen nolol fiican ayaad ka heli doontaan. wadamada ay Soomaalidu tahriibka ku soo galanaya waxaa ka mid ah Talyaaniga, Yemen iyo wadanka Greek oo xitaa intooda nabad ku soo gaarta ay kala kulmaan nolol ka duwan tii ay dhibka u soo mareen. barnaamijkeena la magac baxay saxanka tahriibka oo aan ku soo qaadayno nolosha dadka Soomaalida ee tahriibka ku soo galay wadanka Greeka ayaa waxaa soo diyaariyay inoona soo jeedin doona wariye Maxamed. wadanka Greeka waxa uu ku yaalaa bariga qaaradda Yurub waxaana uu xuduud la leeyahay wadanka Turkiga waxaana la dhihi karaa waa goob saddexaad oo ay Soomaalidu u doortaan tahriibka si ay u soo gaaraan wadamada Midowga Yurub waxaana haatan ku nool wadanka Greeka dad ka badan 1500 oo ruux oo qaxooti Soomaali ah oo dhamaantood wadanka Greeka ku soo galay tahriib iyaga oo ka soo galay xuduudda bad iyo bariba leh ee wadanka Greeka la leeyahay wadanka Turkiga. dadkaas waxa ay isugu jiraan haween, caruur, rag intaba. haddaba barnaamijkan ayaa guud ahaantiisa waxaan ku eegaynaa xaaladda dhabta ah qaabka ay Soomaalidu ugu soo tahriibaan wadanka Greeka iyagoo badankoodana safarkooda tahriibka ah oo ay ku soo gaaraan wadanka Greeka ka soo bilaaba wadanka Soomaaliya oo ugu dambeyntiina soo gaara wadanka Greeka. daahiro dhuxul waa hooyo Soomaaliyeed oo safar tahriib ah ka soo bilowday wadanka Soomaaliya ilaa ugu dambeyntii ay ka soo gaarto wadanka Greeka. magaalada Athens ayaan kula kulmay iyadoo iiga sheekaysay qaabka uu ahaa safarkeeda tahriibka Soomaaliya ilaa Greeka. aan ka soo baxay magaalada Muqdisho ee Yakshiid. marka kadib xagee soo martay marka ku wajahnadeen wadanka Yemen xagee ka soo baxday? wadanka Yemen waxaan ka soo baxnay oo doonta ka soo raacna Boosaaso. marka doonta aad soo raacdeen noocee ay ahayd? laashashka oo lagu tahriibo oo dadka ku dhamaadaan. tira intee leeg ayaa ku saarneedeen doontaas? waxaan ku saarnaynay 80 qofood oo macnaha oo nagala soo qaatay doomanka lacagtooda iyo 4 qofood oo wadayaasha ah oo doomaha wadeen. waxaad noo sheegtay safarkaas aad ku soo marteen badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Yemen in doontii marka ay idinku qabsatay masiibo oo dad kamid ahaa dadkii doonta idin saarnaa ay ku geeriyoodeen badda. marka dhacdadaas sidee u dhacday? dhacdadaas waxay u dhacday markii ay doonta ay badda xoogaan u kacsan nimanka oo iskarta Yementan waa ka cabsahayaan. marka waxay dhaheen degan anakana meehaas ma ku digi karnaa dhahna oo badweynta ah qoriga baadkiisa ay qaateen. marka igaarta iyo kullu dadka dhan waa dileen. waxay dhaheen dega hadana degaynina waxay dhaheen badda aynu ku daadeenaa. meeqar waxaa badda marka lagu daadiyay? badda waxa waaye anaka dhamaan nagula daadsha laakiin mugoor waxaa ku dhamaaday oon ahayn 80 qofood 37 qofood aan ku soo badbaadnay. marka dadka oo dhan yaani si oo qasab ah ayaa badda loogu tuuray Soomaaliya? qasab ah loogu tuuray badda. marka intiina soo badbaaday sidee ayaa ku soo badbaadeen bal ka sheekay? wallahi ilaahay subhanahu qaadir horta ninka tiisa gasho waa dhimaha kan tiisa gelina horta ma dhimahaayo. horta wixii oo tooda gashan waa dhinteen Allah u naxariisto. dadkayna kale wuxuu ilaahay marka tayna wax ka dhineen ilaahay Rabbi subhanahu qaadir aan soo badbaadshay. marka waxaan watay tumanlaha oo biyaha oo afka iiga xirnaay. marka waxaan yeelay tumanlihii afka iiga xirnaa tumanlihii gacanaha ku qabsaday. lamada lugoodna saasan gadaal ugu baxsaday tumanlihii ay wada anaga xeebta banaanka iigay. wixii dabaal yaqaan waa ka baxeen. kadib marka badda ayaa idin ka soo badbaadiyay? badda wallahi waxaan naga soo badbaaday ilaahay subhanahu qaadir iyo Yemanta oo arkeen oo kaluumaysto iska soo arkeen qaar soo bixiyeen iyo wixii dabaal yaqaan waa ka soo baxeen. kadib marka waxaa timaadeen wadanka Yemen marka waxaad uga soo talaabteen wadanka Sacuudiga Soomaaliya kumaadan hakan wadanka Yemen? wallahi kuma hakan wadanka Yemen isla markaan Yemen aan nimidnana waxaan u gudubnay wadanka Sacuudi Carabiya tahriib aan sanad ku galno lugtan ku galnay. kadibna waxaa timaadeen wadanka Suuriya Soomaaliya? Suuriya markaan ka soo tagana markaan Sacuudiga ka soo tagana waxaan aadnay Suuriya mugoor waxaa ka sugaysa Jordan marna. marka waxaa ka sheekaysaa safarka kale oo tahriibkaagii labaad oo aad uga soo gudubtay buuraha u dhaxeeya wadamada Suuriya iyo Turkiga sida aan ka warqabno waxa halka ku yaala buuro dhaadheer
oo markaa lagu tiriyo buuraha ee caalamka ugu dhaadheer oo magacooda la yiraahdo buuraha Antarctica marka safarka oo aad ku soo marteen buuraha qaab noocee ayuu ahaa والله بورها أنتاكي وحاكو الرئيسي أنا كوحاو نقول دجي أنا جوردن مركي نقول دجي أنقلوا ويننا جوردن كنفتقي سأن بيرا أنا دحمرنا أنا كنت دحتهريبنا أنا نقول دحي وذي لغان أيغانا وحان كنتقنا سوريا markaan tagnan waxaan joognay 7 cisho markaan tagna aan baabuur yaraan waxaan ugu wada meel oo gobol oo leedahay Suuriya naga luqtaan ka bilowna aan waxaan ku tagnaa buuraha Antarctica oo silig iyo aan ka talaabsanaa Turkiga ku galna imisa ahaydeen markaa safarka tahriibka oo buuraha aad ugu gudbayseen waxaan ahayna 15 qofood oo markaa haween iyo caruur iyo rag bale haween hal wiil unugaana la jira laakiin inta kale waxaan dan aan ilmo wadin oo naaga iyo niman marka buuraha oo xuduudka ku yaalo waxa la sheegaa in ay leeyihiin halisyo fara badan oo marka hawd ah oo laga yaabo in baahalo marka dadka cuna ay ku jiraan marka wax dhacdo oo la kulanteen ma jiraan wallahi horta ilaahay waxna ma tusin inta laakiin buurahaas aan ka dagaweyn inaan ka dhacno waa laga yaabaa oo kufnay oo jajabna waa dhacday laakiin anaka baahale horta ilaahay ma tusin hal gabar waxa ka cunay maska la yiraahdo kubraha oo buurta ku dhaxcuna kubrii marka wiil nala socdana waa ilaabay ee cunay marka meeqa saac ayaa lugeynaysan habeenkii markaan ayagana aan soo lugayno luqti waxaan ugu soo waday 12 saac oo galabtii ah oo maqribka soo galaayo maalintii subaxdii dambaan galnay maalinka dambo yaani waxa lugeynaysan habeen iyo maalin aan lugayhayna marka wiilkana waxa dureen Turkiga markayna qabteen askarta okay marka aad timaadeen wadanka Turkiga haddana waxaad isku daydeen safar kale oo aad ku soo wajahantiin wadanka Gariiga marka asaga waxaad sida aad noo sheegtay aad isticmaasheen doonyaha yar yar oo la buufiyo marka sidee ayuu ahaa asagana safarka marka anaka askarta waana qabata waana deysa marka isku dayna haddana waxa isku dayna inaan doomaha kale oo yar yarka oo la buufiyo oo haday wax yar taabtaan baqaay inaan haddana Gariiga iyo Turkiga aan ku soo taariibno okay tire intee leeg ay ku saarnadeen doonta yar 27 qofood oo dhamaantiin wada Soomaaliya Sooma baya afar nin ku jirta oo laba nin iyo naag Iraq isqabe iyo laba oo masaare okay marka xilli habeen soo baxday Sooma 23 waxay ahaayeen Soomaali waa gartay xilli habeen ayaad ka soo baxdeen Sooma habeen 4 saacana la soo saaray okay meeqa saac ayaa ku soo jirteen badda waxaan ku soo jirnaa nus saac oo motorka nooga dhaxlaabay ilaa hal saac baraan ku jirnaa okay marka doonta badda ay ku dhaxlawday oo badweynta aad dhexmareyseen sidee ayaa marka aad noqotay xaaladiin anaka markay naga halaabaysa badda Gariiga markaan soo galnay ay nooga halawda doonta markay nooga halawda aan waxaan qoryaha oo malayga saas loogu filaaqa doonta lagu filaaqay sidee iyadoo noo dhowdaha jamalkii lagu degi lahaay sidee marka ku geeyna anaka markaan xeebta aan u dhawaanay wax yar noo jirto oo badnaynina doonta waa baqday anakana waa ka kala ordna waa ka baxna okay marka askarta ee badaha ilaaliya ee Gariiga ama Turkiga wax caawinaad ah ma weydiisteen ama ma ku dhaxaragteen badda inta safarka tahriibka ku jirteen macnaha hadaan hal marka ma aragna halka markamna waa ka dhuumana maxaa ugu dhuumanaysan hadda waxa waana qabaha markuu qabtan biyo wuxuu naga daadiyaa shidaalka oo doonta markuu naga daadiyo inana dilo oo wuxuu nageeyaa meel oo Turkigana jirin oo Gariigana jirin oo jasiirad oo bahala jawo god ay ku in galay